ilaa hadda mar walba aad ka shalayso. hal mid ayaa jirto oo aniga si zaa'ida ii taabatay midaasna waa midda ilaa hadda aan iloobi lahay quraanka waxaa lagu sheegay qofkii qof bini aadan dila inuu bini aadanka oo dhan wada dilo qofkii qof bini aadan badbaadiyana bini aadantinimada dhan inuu badbaadiyo anigana waxaan isku arkaa inaan ahay qof bini aadanka oo dhan badbaadiyo islaamka ka hor taasina su'aal kamaba taagnaba hadda sababtoo aniga nin habaaran ayaan bahay alxamdulillaah qof qalbi ka jabsan ayaan ahaa laakiin shaydaanka qofka bini aadanka wuxuu ku ciyaaraa markuu qalbi jabsan yahay ama markuu xanaaqsan yahay noloshaada caqiidahaan maxay ku salaysnayd maxaadna aaminsanayd xaqiiqatan markaas aniga waxaad aaminsanaa ma jirin laakiin bulsho kristaan ayaan ku dhex noolaa kiristaaniintaasna aniga mid aniga igu socotay oo maskaxiyan ii gashay ma aysan ahayn dareenkayga ayaa diidanaa sababtoo ah qof inaad dhahdo qof kale ii baray allah adiga ii soo bari taasaa adiga wax daadigi waa ahay in macnaha jesus aan dhaho allah adiga ii soo bari si uu aniga ii aqbalo jesus aan koo u tagaa taas xoogaa aniga maskaxdayda ka degi weyse waxna way igu soo kordhi weyse sababtoo ah qof aniga imaqlaa inaan wax weydiista ayaan rabaa qof asiga bini aadana ilaah kama dhigan kari aniga tusaale ahaan hadda hal mid aan ku tusaale lacala aniga haddii aan qof baabuurka rabo qofkaas aniga inaan u tago waay laakiin adiga inaan ku dhaho hebel adiga baabuurka ii soo weydi waxaa ka wanaagsan qofkaas aniga si toos inaan ula tago ula hadlo taas waay midda aniga aan raadinay waana midda iga maqneed waana aamini waay anigoo da'yar ayaan waxaan bilaabay inaan wax barto laakiin iskhilaaf ayaan meesha ka arkay sababtoo ah jesus waa ilaahay jesus waa wiilka ilaahay jesus waa ilaahay taasaa maskaxdeeda ka degi weysay jesus waa ilaahay jesus waa wiilka ilaahay dhibaataa meesha ka taagan sababtoo ah maskaxiyan way iga daadegi weysay ma ahan oo keliya jesus inuu ilaahay yahay jesus waa wiilka ilaah lagu dhaha haddana meesha waxaaba ka soo baxday aabbaha iyo wiilka ruuxulqudustaa la jirta aabbaha iyo wiilka waa garanay laakiin ruuxulqudusta xaggee ka imaatay maxaase looga baahan yahay iskhilaafka ugu horreeyey meeshaas ayuuba ka imaaday kadibna aniga diin oo dhan ayaanba ka soo horjeestay waxaana aaminay in aysan jirin khaaliq abuure makhluuqaan oo idil dadka ay wada rumaysan yihiin anigaaba isku haystay inaan ahay khaaliqa makhluuqaan abuuren saasaa mararka qaar u dhaqmi jira acuudu billahi min ashaytaan rajiim sababtoo aniga waxaan iska dhigaya nin awood badan haas inaan ahay diinta waa ka soo horjeestay nin da'yar ayaan ahay xanaaqna usii dheeryahay xilligaas imase jir ayaa ahayd haddaan qiyaaso 18 jir ilaa 19 jir nolosha burcadnimada markaas ka hor miyay kuu bilaabatay markii aniga nolosheeda burcadnimada ay bilaabay 8 ayay ahayd balse hadda 9 ayaan ka hadlaynaa markaas soo gelaysa meeqa sana jirtay markaas 10 jir ayaan ahaa aanan waxba hooyo lahayn micnahayga hooyo ma lahayn aabba ma lahayn guriga ciidan ugu dayda ma aysan lahayn waqti waxaa jirtay aniga meel inaan fariistay kadibna xabad ayaan rabay in laygu dhufto markaas waa leela waayay xabad haddana nin kale ayaa ii imaaday bistoolad ayuu igu taagay markuu reeshada taaba ismaagay xabadii weyba u dhici weysaba xabadiyaa u dhici weysay marka nin waxaan arkay dhibaatooyin fara badan la soo kulmay mar meelaan ka booday kadibna isbitaalka ayaa leegay dhowr jeer ayaa lee bursaday marar qaar waa lay qabtay xaqiiqatan nolosha dhibashadeedaba aniga wax dan aan ka lahaa haba yaraatee ma jirtin nolosha burcadnimada ayaa rol model ii ahayd sababtoo qof i haga maysan jirin waad cabsatay dabcan haa waayahe qanacsanaan iyo isbeddel ma kuu horseeday waqti xaadirkaas markii loo fiiriyo aniga waan ku qanacsanaa sababtoo ah markii aad adiga baxdo tusaale ahaan habeenkii markaad keligaaga tahay hurdi iyo waxyaabo kale ayaad u baahan tahay soomaad subaxii ayaad soo kacaysaa nolol cusub inaad bilaabato ayaad u baahan tahay markaas noloshaada ayaad sii bilaabtay sida gaari oo kale ayaa tahay gaariga markuu socdo shidaal ayaa ka dhammaanaya kaalin shidaal tagaa shidaal u shooda adi maalintii oo dhan buuqii balaaya ku jirtaa shidaalkaa kaa soo dhammaanaya habeenkii markii la gaaro kadib waxaad samaynaysaa gurigaaga imaanaysaa waa in aad seexataa markaad seexato subax haddana gaari shidaal u baahan tahay shidaalkaagii waa buuq rafaad dhibaato waxyaabahaas in aad samayso waana ku raaxaysan jira xaqiiqatan sababtoo waxaan isku arkay lama taabtaan in aan ahay waxba aysan igaari karin oo dadkoo dhanna aniga ay iga cabsanayaan waxna aysanba igu samayn karin kaas ayaan aniga ku qanacsanaa runahaantii maalintii oo dhan waxyaabahaas aan samaynaya laakiin habeenkii waan dareemay inaysan jiraan wax qaldan laakiin meesha qaladka uu ka jira ayaanan fahamsaneyn sababtoo ah nafteeda ayaa marar qaar aniga iga hor imaanaysay meelaha ay wax qaldan yihiin iyo qaabkay wax u qaldan yihiin intaba haddaan isku day inaan sax masaxi karin waqti xaadirkaas sababtoo ah nin diin aaminsan ma aanan ahayn waxaan aaminsanaa hadduu ilaahay jiro sababtaad adiga waxyaabahan u samaynaysa maxay tahay taasaan aaminsanaa diintaan u caraysnaa sababtoo waxaanba ahaaba nin ilaahay uu habaaray islaamka waaye adiga ilaahay maxaad ugu caraysnaydna wax kale maa hooyadeeda inay aabbahayga dishay taasina xaqiiqtan waxay ahayd midaan u qaadan waayey keliya maysan ahayn maadaama ay aabbahayga dishay laakiin aniga xitaa way iga tagtay meelay ka baxday waan waay kadib anigana markaas wixii ka dambeeyey ilaahay maba aanan aamin taasaa shaki igala waxaan leeyahay hadduuba jiro khaaliq dunidan abuuray adiga waxaan maxay kugu dhacayaan